مع السنة القدومية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا doodaydu waxay ku saabsanaysaa 20 ilaa 30 waxaan gudoomiye qabaa waxa qofku hal daqiiqo ka badan ama ka yar kagama doodi karo uusan marka hadii la yiraahdo 10 ilaa 20 ilaa 40 macnaha waxa weeye hal daqiiqo laba qodob kaga doodo waaye wax saxana ma aha 10 daqiiqo ka badan waxa weeye 10 qodob ka badan 10 daqiiqo loogama doodi karo. sidoo kale waxaan intaanan qodobbada gelin aan in yar raacsanaya halkan maalin waxa soo istaagay gudoonka qof kamid ah oo yiri xildhibaanada intii isqortay ma aha gadaal iskama qori karo waxaasna sharciga khilaafsantahay xildhibaanka halkan fadhiya xaq wuxuu u leeyahay xilliga waxa weeye jalsada ku soo biiro dooda socota inuu gadaal iska qoro oo waxa weeye dooduna ay sidaa waxa weeye ku sii socoto. qodobka saddexaad aan ku darsanayo wuxuu yahay liisasku waxay ku qurux badan tahay projectorka halka inoo saaran sida saxda ah waxa weeye in loo isticmaalo liisku uu gadaasha ka muuqdo oo waxa weeye daafurnaan ay ka muuqato ee mudane gudoomiye waana qodob waxa weeye wax badan waxa weeye buuqa gudaha iyo sawaxanka ka dhaca waxa weeye xal u noqonaya. tan saddexaad waxaan ku darsanayaa qodobbada waxa weeye dastuurka in dooda waxa weeye ka sameynayno waa kala mug weyn yihiin qodobbo waxa weeye keligood waxa weeye dood waxa weeye iyo wax ku daris dheer waxa weeye u baahan baa runtii waxa weeye jira hadda maanta waxa islu saaran qodobbo waxa weeye 10 laakiin haddii qodobka soddonaad keligiis aad fiirisid isaga wuxuu u baahan yahay bulshada Soomaaliyeedna waxa weeye inay waqti gaar ah ay u helaan waxa weeye si dhaba loo tafatiro wana qodobka waxbarashada xaqa waxbarashada waxa weeye ku saabsan kama wada gaarsiiyo dhammaan qodobbada isaga waxa weeye xoog saari doona. qodobka 20aad wuxuu ku fiican yahay in sidiisii waxa weeye hore waxa weeye loo daayo mushkilada jirta buugtaan haysano dhanba waxbay siba isu daba marsan tahay marka qodobka 20aad muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato arrimaha siyaasadeed dalka uuna samayn karo kana mid noqon karo waxa weeye xisbi siyaasadeed loona dooran karo ma qodobkii qoran karma qodobkan waxa lagu soo kordhiyay waxa weeye waan ka tagayaa saan waqti igaga lumin waxaan u gudbayaa waxa weeye qodobka 22aad waxaan rabaa horta marka koowaad inay guddiga qortaan in oo commentiyadii saan waqtiga u dhowrto qodobka 30aad u galo commentiyadii senator Sareedo iyo xildhibaan Guuleed ayaan waxa weeye commentiyada waxa weeye la qabaa waqtigo yar waxa weeye dartiisi aan waqtiga 10 daqiiqo waxa weeye uunan iga dhicin in ugu muhiimsanayd waxa weeye xiriirka shaqada in fursadaha shaqada waxa weeye loo bedelo. qodobka 22aad qodobka waxa weeye 22aad oo ka hadlaya faqradii saddexaad oo ka hadlaysa shaqo joojinta in la sameyn karo dasaatiirta dunida dhan waa xaq waxa weeye sida ay u qoran tahay waxa weeye inuu waxa weeye shaqo joojin nabadeed uu qofku sameyn karo marka in siiqada waxa weeye shaqo joojin nabadeed waxa weeye la sameeyo oo waxba xeerar aan hadda garanaysay waa xadidi doonaan xaqa dastuuriga sida saxda waxa weeye inaan xeer lagu xadin waaye marka in marka horeba la cadeeyo shaqo joojin nabadeed hadaysan shaqo joojin nabadeed ahayn waxa weeye xeerarkii iyada waxa weeye markaas ay xadeynayaan aysan. qodobka 23aad oo xaqa deegaanka waxa weeye ka hadlaya kuma cadda doorka dawladda yani dawladda waxa weeye waajib loogu leeyahay waa in lagu cadeeyaa in ay waajib waxa weeye dawladda saaran tahay inay muwaadinka inuu deegaan waxa weeye nabad ah oo karaamo leh inuu helo in waxa weeye lagu cadeeyo badanaan qodobbada xuquuqda ah in doorka dawladda waxa weeye lagu cadeeyaa qodobbo kale sidaas u qoran waxa weeye waa dul mari doona laakiin in la cadeeyo in ay dawladdu ay kafaalo qaadayso oo ay waajib ku tahay qofkii daryeel deegaan inuu xaq u leeyahay uuna helo deegaan waxa weeye caafimaad ah. qodobka ka hadlaya xuquuqda bulshada waa sidoo kale oo qodobka waxa weeye 27aad qodobka 27aad waa in isagana la xadidaa oo biyaha iyo ka hadlaya biyo nadiif in la helo dawladda waajib ku tahay in la yiraahdo in muwaadinku uu helo waxa weeye biyo nadiif inuu helo
dowladda waajib ku tahay in la yiraahdo waa sida qodobada kaleba ay ugu cadaan in mas'uuliyad qaran oo dowladda saaran ay tahay waxaan intii hordhac ahayd waxaan kaga gudbayaa qodobka waxa waaye 26aad qodob ku saabsan guur ansaxaya ma jiro haddaanay si xor ah iyo ogolaansho ninka iyo naagta ka timi jirin labaduba aan qodobkayga u dambeeyay aan waqti dhan u keydsada waxa weeye aan wada galayaa oo qodobka soddanaad mudane gudoomiye oo tacliinta waxa weeye ku saabsan tacliintu dastuurkeena kan hadda waxa weeye dib u eegis ku sameynayno si kooban oo aan faahfaahsanayn bay waxa weeye ugu qornayd maadaama guddi hoosaadkii waxbarashada aan waxa weeye gudoomiye ka ahay waxaan qabaa tacliinta in oo waqti intaan ka badan waxa weeye la sii geliyo qodobadeedu oo isticmaalaya qodobka soddonaad baa ku jira waa ku jira soo jeedinta isticmaal qodobka soddonaad isticmaalaya ma dib ma lahay aniga say u qoran tahay qodobka soddonaad waa waxaan isticmaalaya qaybta dhexda ku jirta saas ugu calaamsan qodobka 28aad oo waxa weeye waxbarashada waxa weeye ka hadlaya waxa uu intii hore uu dib u siyaaqeyn ugu sameeyay wax badan waxa weeye lagu soo kordhin qodob ku saabsan waxa weeye number 1 qodobka labaad oo waxa weeye ka hadlaya muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho lacag la'aan ah oo gaarsiisan ilaa heer dugsi sare ilaa uu ka dhameysanayo dugsi sare intii waxa weeye heer dugsi sare markuu gaaray ka joogsanaysa mise ilaa intuu ka dhameysanayo waxaan soo jeedinahaa in ilaa uu dhameysanayo dugsi sare waxa waaye laga dhigo haddii aan ka wadno dugsi hoose iyo dugsi sareba in waxa waaye ay lacag la'aan noqonayso mustaqbalka waa inay ilaa dugsi sare uu ka dhameysanayo noqotaa saasaana soo jeedinaya markii intaa laga yimaado oo qodobada kale oo dhan waxa waaye aan ka dul dhaqaaqo waxaan dul istaaginahaa xaqa waxbarashadu wuxuu xuquuq badan oo waxa waaye iyo mucaahadaad fara badan iyo oo waxa weeye Soomaaliya ay qayb ka tahay buu ku cad yahay waxaana ugu muhiimsan markii waxbarashada laga hadlayo dastuurka waxa waaye qodob ka mid ah inuu qeexo ila shakhsiyadda qofka muwaadinka la soo saarayo waaye in lagu qeexo waxa weeye hadafka guud oo waxa weeye waxbarashada aan ka leenahay in qodob lagu qeexo dastuur waxa wadan uu leeyahay oo ay ka maqan tahay ma arag xuquuqda markii laga hadlayo in meel kale waxbarashada laga hadlana dastuurka waxa weeye waa ku yartaa in hadafka guud laga hadlo qodobka labaadna waxa weeye dasaatiirta dhani waxa lagu ilzaamiyaa dawladda maadaama xuquuq waxbarasho laga hadlayo oo 4 milyan oo caruurteena ay waxbarashada bannaan ka tahay dastuurka gudihiisa waxa dawladda waxa weeye lagu ilzaamiyaa inay ku qirato nisbada ay ku bixinayso waxbarashada percentage intee leeg waxbarashada ku bixinaysa oo loo siyaaqeeyay inay kordhayso ilaa laga gaarayo mucaadalaadka waxa weeye yani percentage-ka dunida laga gaarayo waxbarashada ay ku bixiso xuquuqdan yani muwaadinka Soomaaliyeed oo waxbarashada ku leeyahay lama wada gaari karo haddii aan dawladda lagu waajibin oo percentage uusan ku qornayn dastuurka gudihiisa ku qoran hadday 1% tahay hadday 2% tahay hadday 3% tahay miisaaniyadda waxbarashada waxa waaye qoondada oo aan u ansixino research-ka wasaaradda waxbarashada samaysay markay u fiican tahay qoondada waxa loo sameeyay 53% bay ka heshaa waa marka u fiican tahay marka dastuurka gudihiisa waxaan soo jeedinayaa muddo gudoomiye in waxa waaye lagu xadido percentage hadduu 4% noqon hadduu 5% noqon lana cadeeyo inuu waxa waaye kordhayo sanad kasta ilaa laga gaarayo macadalka dunida waxa waaye ay ka gaarayso qodob kale oo isaguna waxa waaye jira wuxuu yahay jaamacaadka marka laga hadlayo si guud baa looga hadlay laakiin dastuur gudihiisa jaamacaduhu inay yihiin xarumo waxbarasho oo madax bannaan inay yihiin waa in dastuur gudihiisa waxa waaye lagu cadeeyo jaamacadaha sida hadda waxaan leenahay akaademiyada afka iyo suugaanta waa hay'ad madax bannaan waaye waxaan leenahay akaademiyad goboleedka aaga oo aan miisaaniyad ku bixino waxa weeye waa hay'ad madax bannaan waaye jaamacaduhuna xukunkaas ay leeyihiin dastuurka gudihiisa sida dunidu ay ku cadeyso jaamacadoodu inay yihiin xarumo waxa weeye aqooneed oo madax bannaan oo ilaalinaya gobonimada dalka ilaalinaya waa in lagu cadeeyaa isla markaana
intii suurtagala in waxa waaye lagu caddeeyo miisaaniyadda waxbarashada inay qayb ka ahaadaan. qodobka kale waxa waaye macallimiinta dastuurada waxa waaye iyadoo la qiimeynayo karaamadooda iyo mowqifka iyo makaanada ay bulshada kaga jiraan dastuurada waxa waaye kala duwan waxa waxbarashada kaga qoran oo xuquuqda waxa waaye la ilaalinayo ka mid ah waxbarashada la yimaado markii waxbarashada yimaado macallimiinta iyo xubnaha waxa waaye faculty-ga waxa waaye waxbarashada iyo kuwa waxa waaye kalkaaliyaasha u ah dhammaantoodba in ay dowladdu ay kafaalo qaadayso waajibna ay ku tahay inay horumariso maadaama ay sabab u yihiin in xaqa waxbarashada la ilaaliyo. sidoo kale inay dowladdu waxa waaye dastuurka lagu caddeeyo ay dhiirigelinayso ama kafaalo qaadayso xorriyadda cilmi baarista, dhiirigelinayso hay-adaha waxa waaye cilmi baarista waxa waaye ka shaqeeya, cilmi baaristuna miisaaniyadda waxbarashada inay qayb ka noqoto inay ku hesho percentage waxa waaye ay ka hesho miisaaniyadda. tan u dambaysa aan ku soo gabagabanayo waxa waaye oo xuquuqda guud oo dasaatiirta ku qoran ah dowladda inay waajib ku tahay inay qorshe waxa waaye istaraatiijiya ay dejiso oo ku saabsan la dagaalanka waxa waaye wax akhrinta iyo qoris la'aanta hadday tahay akhrinta iyo hadday tahay xisaabta. percentage-ka mudana guddoomiye ummadda Soomaaliyeed aan wax qorin boqolkiiba 60.2 waaye 2015kii boqolkiiba 60 waxa waaye waxay ka tarjumaysaa inaan dowladda ku waajibino inay qorshe waxa waaye cad oo istaraatiijiya oo ay keento halkan oo laga ansixiyo oo isla markaana uu noqdo waxa waaye xaq dastuuri oo muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay xilligan waxa waaye adag oo waxa waaye lagu jiro. waxaan rajaynayaa in qodob ku saabsan waxa waaye xuquuqda dastuuriga ah oo waxbarashada in dood bulsho la geliyo oo lagala tashto jaamacadihii iyo dugsiyadii iyo dadkii waxa way gacanta ku hayay iyo wasaaradda waxbarashadaba sidan caatada ay u qoran tahay waxa way dastuurkeena aan aad u mahadsantahay.